reer Mannheim maanta way idila joognaa haddaan is arki weyno insha Allah maalinta kale is arkayna mid kale waa wariyiin wax joogo wariyaa soo dhaweyntiina nama rabe salaam wanaagsan qaar baad rajeynaya soo dhaweyn waa ka dhargay rag ka horeeyay bas aan soo dhaweeyay sharci daraan ku ordaynaa wadada waliga sharci darama ku dhaaf dambi weeye wax fiican maaha soo dhawaada waxaan joognaa maanta magaalada Mannheim markii ugu horeysay Mannheim nimaadno markii ugu horeysay ma safar ku mari jirnay laakiin maanta waxaan isku dayaynaa inaan magaalada dhex galno insha Allah yaa wax ka waqti dambe aduu shantii inta ka gaari karno ka gaarayna kadib waa ka baxaynaa beer qurux badan baa dhinacayga xigtaan soo maray beertaas magaceeda ma aqaan waxay leedahay dabaq waa Shuluuska Mannheim Shuluuska Mannheim baa leedahay okay reer Mannheim ninka garanaya Shuluuska Mannheim dadka kale Germany laga yaabo dad badan inay soo booqdeen oo ay la soo garanayaan waxa la yiraahdo marka dhismaha ku yaala ninkan xagga sare ka sawirana ma garanayo adiga waa magaalo iska taariikhi ah waxay ka kooban tahay soo gaadona insha Allah laakiin ka taariikhda ku marnay saan ku ogeynay magaalo American inay heeday waxa u dhow ma filayaa haddana khaldanayn xarunta ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Germany marka dadka degan Mareykan bay u badan yihiin askarta Mareykanka naagaha ay qabeen bay u badan yihiin iyo waxaa soo dhan waxa magaalada Mannheim qofkii arkay ama tagay ama warka haya runtii de waa magaalo weyn waa magaaladii Mainz ayaa inoo dhow dhankan kalena waxay naga xiga gobolka Baden-Württemberg, Karlsruhe, Stuttgart, Heidelberg, Freiburg iyo dhammaan qofkii doonaya inuu Jarmal kala bartaa han la yaabin haddaad u aragtaan waxaan nimankan masaakiinta u eegay kubad baan ka nimi marka wax dhibaato ma laha nimankii kubadda ka soo shaqeynaya kamid ah ila jooga bal aan weydiiyo Jamaal ka waran xaaladaha maanta ee magaalada Mannheim wallahi ma sha Allah Mannheim aad iskaga qurux badan tahay maanta inkasta oo kubad lagu soo daaleen iska duufaysan yahay laakiin waxaan rajeynaynaa inay noqoto maalin aad u qurux badan maanta waxaan eegaynaa waxa isla hayaan reer Mannheim kolley Soomaalidan kuma arag inta imka soo baxay waan hoofka waan soo maray magaalada imka u dhaadhacaya laakiin magaalada waa magaalo aad iskaga qurux badan Soomaali badan oo ku nooshahay Mannheim laakiin Soomaalidii ma arag reer Mannheim maxaad ku leedahay gali doonaa reer Mannheim banaanka soo baxa Mannheim ay joognaa maanta reer Mannheim maanta way idila joognaa haddaan is arki weyno insha Allah maalinta kale is arkayna mid kale waa wariyiin wax joogo wariyaa soo dhaweyntiina nama rabe salaam wanaagsan qaar baad rajeynaya soo dhaweyn waa ka dhargay rag ka horeeyay bas aan soo dhaweeyay sharci daraan ku ordaynaa wadada waliga sharci darama ku dhaaf dambi weeye wax fiican maaha almuhiima iska wareegin Jarmalka lagu qabanayo ee soo baaqatay ma dhib ma laha wixii garoonkaas insha Allah xalka Berlin bas waxaan nooga dhacday taasaan ku qancayna alxamdulillah koobkii Soomaaliya isna uu noo bilowday maanta si waxaan u dhacay Berlin buu ka dhacay insha Allah hadaad muuqaalka maanta daawanaysid waa afartii bisha maanta afar bay sax afartii bisha hadaad maanta daawanaysid ama maalin kale daawanaysid adigu afartii bishaan muuqaalka duubnay waa arrin wanaagsan runtii reer Mannheimna aad baan u salaamaya magaaladoodana waa magaalo ka shidanta waxay u baahan tahay magaalada kaliya horta magaalada meherad Soomaaliyeed ma leedahay saasa jeclayna leedahay laakiin wili ma hadday jirto hoos noogu soo qoraa haddii meherad Soomaaliyeed jirto waan salaamayna haddaan jirinna ma jirto hadday jiri lahayd waan soo dhaweynayna iyaga maya insha Allah Mannheim maanta noqon mayso maalinta ugu dambeysay maalin annaga iyagoo og inaan soo aadayno ayaan insha Allah soo aadi doonaa waxaanu iman doonaa insha Allah si qurux badan sharaf leh karaamo leh maanta safar leh ku soo marnay marka guryahan ku soconay marka meesha ka soo baxnay xoogaa waqti baan haysanay maadaama markaad waqti haystid waqtigaaga ka yara faa'iideysanaysaa isna si salaamo adigu danta u timi maxay anigu inaan Mannheim u soo xiisay oo aan dadkeeda soo salaaman u imi adigu maxay timi safar yar oo gaabana iskaga yar socday safarkii aan ku kulannay ninka Axmed Ahaye marka safarkaaga awgiiba halkan ayaad safarku kula soo aaday halkan horta reer Mannheim waxaan arkay dadka commentiyada iga bixiyay dad badan oo ila soo hadlaa ku jira dad badan oo aan jeclahay baa degan aad baa idin salaamaya reer Mannheim oo dhan reer Mannheim oo kaliya ma aha dariskooda xitaa
كان كم بدك سومالي وياك هذا سلامنا رتريان باو دغح عنجر با joogtay Soomaali week daqiiqadii sidoo wad soo laabanaya tahay magaalada ma wareegaynaa de wax kale ma jiro xog ahay halka waxa la yiraahdaa Columbus House sorry aan tuso derbiga Columbus House maxaa ku qoran Columbus House meel iska fiican runtii sidoo kale maanta waxaan tagay magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin Vinsheim Heidelberg iyo waan arkaysan Facebook-gayga idin soo dhigay in magaaladaan joognay waa Jarmalka insha Allah iminka corona uu yaraaday marka waan safri karaynaa safarka maanta waxaan kusoo galay Forsheim Karlsruhe Heidelberg ما شاء الله ولا صيرة صعدة مالك لكن saddex bilood dhan baa ku jirnay xilli corona virus iyo wax laakiin hadda waqtigu waa la yara furay nolosha safarka iskaga soo laabatay marka caadi midda kale laakiin vloggan waxaan ku sharafnay reer Mannheim vlog hore idin ma soo duubin nasiib xumo laakiin muhiimadu waxay ahayd inaan reer Mannheim sharafno maadaama aynu safar ku marayno abaar ku sii yara raagnaa hadana waqti ku qaadanay wada joognay halkan ku soconay magaceed شلوسك وحق صعنا منها كتبنا وحير واسكا يرد قضيتينا ويرد علينا مقالدك ويرنا سنة وبحنا مركا منها ساعدوا لو ساعدوا من الناس كل وقت ولا يجوا الناس هذا ساسن نقول سهر منهم كل وقت في عام وضع قادناي وحن فيليا هنا maalmaha dambe aanu nimaado idinkoona ogin aanu nimaadno maanta dhumashaan ku nimi dhumashadana mararka qaarkood waa qayb ka mid ah siyaasadda oo markay dadku kala degan yihiin aad duumatid iyadaan cid ku arkayna aad duumatid halka wax dhiba ma laha maalinta kale beer qurux badan baa dhinacayga xigtaan soo maray beertaas magaceeda ma aqaan waxay leedahay dabaq waa shuluuska manham oo shuluuska manham baa leedahay okay reer Mannheim idinka garanaya shuluuska Mannheim dadka kale Germany laga yaabaa dad badan inay soo booqdeen oo ay laftooda garanayaan waxa la yiraahdo marka dhismaha ku yaala ninkan xagga sare ka sawirana من قرنيه هذه هو مجال اسمه تاريخ وحي ككون تاع سوق الدنيا ان شاء الله لكن كسر تاريخ لكم مرنا سام كوغي نبي مجال امريكاني نه هدا واحد دhow ma filaya hadana khaldanayn xarunta ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Jarmal marka dadka degan Mareykan bay u badan yihiin askarta Mareykanka naagaha ay qabeen bay u badan yihiin iyo Thank you.